جبلان شعب كود وشعب غالي وشعب وقت بدن soo maray marxalado kala duwan soo maray dhibaatooyin aad u adag soo maray mudnaa inay helaan xaqooda helaan inay helaan cadaalad inay helaan doorasho xalaal ah oo ay qofkay rabaan ayagu ku doortaan ma mudno shacabka reer Jubbaland in maanta dagaal la geliyo in maanta isqaqabsi la geliyo in la qabiileeyo in jahadii ay ummadan ku socotay mustaqbalka wanaagsaneed laga wiciyo in laba ruux la iskaga hor keeno in facebookida la iskaga jawaabo in ummadii mustaqbalka iyo hanki ay lahaayeen guud laga wiciyo Jubbaland maamulkeedu waa maamulka kaliya ee 15 sano labada degmo fadhiyay 15 sano maamulka Jubbaland labada degmo fadhiyay wuxuu fadhiyay degmada Kismaayo iyo degmada Afmadow waa 15 sano Jubbaland waa maamulka kaliya ee caasimadiisii dhammaan markii la babac dhigo ama la barbar dhigo maamul goboleedyada kale ee Soomaaliya ka jira caasimadiisii aan ku shaqeynin ee degmo ku shaqeeyo waxaana dhihi karaa maynsa awoodi waayeen Jubbaland in la qabto caasimadeeda la qabto laba awoodi waayeen awood ciidan looma waayin awood dhaqaalana looma waayin awood dawladeedna looma waayin intaba waxaan dhihi karaa Jubbaland waa maamulka kaliya dadkii iyo dalkii ka maqnaa aan diiwaanka total ugu jirin Jubbaland waa maamulka kaliya hadduu qofku fikirkiisa cadeeyo uu dambiilaha yahay Jubbaland waa meesha kaliya ee qofkii ayadoo sacabatumo uu fadhi ku daaq noqdo qofka ayada dhaliilo oo ka soo horjeedana dambiile loo yaqaano waa meesha kaliya ee laga tarxiilo dadka u dhashay ee laga tarxiilo ciidamkii u soo halgamay waxaan rabaa inaan la hadlo shacabka Jubbaland waxaan rabaa inaan la hadlo ciidamada Jubbaland waxaan rabaa inaan la hadlo waxgaradka Jubbaland meel kasta ay joogaan walaalayaal anoo ku horeynayo awoodda ay Jubbaland ku dhisanto ah ciidanka wiilashan walaalaha nahay ilma adeerka nahay saaxiibaha nahay ee naftoodii iyo maalkoodaba u horay Jubbaland ee furinta wada joogo aad baan uga warhayaa marxaladihiina aad baan xogogaal ugu ahay in badan baad ku soo dulqaadanayseen ama Jubbaland aad ku difaacayseen nolol aad u adag oo suurtagal ah 5 bilood 6 bilood inayna salary ama mishaarkiina toosa in helin waxaad inta u difaacayseen dadkiina iyo dalkiina waxa ma insa dhicin 15 sano ama 14 sano Jubbaland la joogay in lidin hubeeyo lidin qaban qaabiyo la idin diro deegaamadii Jubbaland ee gacanta Jubbaland ka maqnaa waxa agtiina joogo degmooyin badan oo Jubbaland kamida oo intiinu wada garanaysaan oo gacanta maamul goboleedka Jubbaland ka maqan waxaa joogo ku nool gabdhaha ku nool Kismaayo oo kale kuwa la mid ah ku nool waxaa joogo kuwa ku nool Afmadow iyo Dooble oo kale waxaa dadka joogo waxay u baahan yihiin sharaf iyo cizi waxay u baahan yihiin xurriyad waxay u baahan yihiin heel maanta in ladin sheego message aan jirin oo ah Jubbaland baa lagu soo duuli shalay hadii lagu lahaa Jubbaland waxa ku soo duulahayo hebel ama beel heblaaya ku soo duulayso ama hawiya ku soo duulahayo ama maraxaan baa ku soo duulaya shalay hadii lagu lahaa maanta maxaa la leeyahay maanta waxa la leeyahay Jubbaland waxa ku soo duulayo Hamze
jubbaland waxaa kusoo duulayo taliya khaalid. Okay, aan dul istaagna labada qodob. waa kuma Xamse waa prime ministerka Soomaaliya, waa xildhibaan nagu matalo dowladda federaalka, waa ra'iisul wasaarihii qaranka Soomaaliyeed, qoondadiisuna ay tahay iyo saldhigiisuba ay Jubbaland. see adoo aqligaagu waasac yahay adoo wax kala garanhayo lagugu sheegi karaa Xamse kusoo duulayo Jubbaland? ma jirtaa ra'iisul wasaare ama taariikhda adduunka ma ka dhacday kusoo duula guriga asagoo u lahaa caruurtiisa guriga ay seexanayeen? ra'iisul wasaare guub adduunka ma ka dhacday? maya, ma dhici karto. see lagugu sheegayaa walaal, see lagugu sheegi karaa Xamse oo ahaa prime ministerka Soomaaliya maanta shalaytana ahaa gudoomiyihii guddiga doorashada Jubbaland ee doortay Axmed Madoobe ee soo saaray ee juudigan arkay ku bixiyay ee xaqlaha ahaa Jubbaland ee mulkiilaha Jubbaland ahaa in maanta lagu dhaho Jubbaland burburinaysa lagu sheegi? waxaa la rabaa inuu aqliga saliimka shaqeeyo, waxaa la rabaa inaad fikirtaan, waxaa la rabaa inaynan noqonin wax magarato. wixii la rabo haddii lagu sheego macnaheedu waxaa weeye inaadan waxba ahaynba. waxaa loo baahan yahay walaalayaal inaad waxna diidi kartaan waxna yeeli kartaan. waxaa lagu yiri waxa kusoo duulayo Jubbaland oo ciidamo soo gurahayo ra'iisul wasaaraha qaranka iyo taliyaha ciidamada lugta oo labaduba ka soo jeedo Jubbaland. waxaa la yiri Khaalid baa ciidamo soo wado oo Jubbaland geedi ku rabo inuu burburiyo Jubbaland oo heesa la shidaya oo ummadda la rogaya. waa kuma Khaalid aan dul istaagno. Khaalid wuxuu ahaa maalintu Kismaayo iimaanay anu magaalada Kismaayo aan joogo. Khaalid cod kasta maraka ah, cod kasta oo daawanayso garanayso reer Kismaayo ama reer Jubbaland ha maraka ahayd. habeenku Khaalid Kismaayo iimaanayay taleefanada hal saac oo habeenimo magaalada Kismaayo laba dhaxmari karin. habeenimo dadka guriga laga baxayo badda la geenay cilla inaysan la ogeyn. habeenku imaaday dacfadii koobaad ee taliya Khaalid uu sameeyay baa noogu horeysay nabadgeliyo taleefanka magaalada Kismaayo saacadan doon la dhaxmar. Khaalid wuxuu ahaa halbowlaha ciidamada Jubbaland, wuxuu ahaa ninka dhidibada u aasay fast ciidanka nabad sugidda Jubbaland. nabadna kama horeeyay ciidanka nabad sugidda dafcadii koobaad dadka ka qayb galay joogay maragay marxaatiga ka ahaabaan anigu ahaa taagnaa. ninkii wuxuu ahaa nabadgeliyada aaga Kismaayo iyo gudaha Kismaayo ba sifeeyay buu Khaalid. Khaalid wuxuu ahaa ninkii ciidamada Kismaayo qaabkay u dhisan yihiin iyo nidaamkooda ka shaqeeyay buu. Khaalid wuxuu ahaa lix jeclaalihi ciidamada Jubbaland buu ahaa. aad baan u garanaysaan kulligiin marag iyo marxaati baad iiga tihiin. cidii aan marag iyo marxaati ka ahayn waa ciidan ogeyn. ma dhici kartaa maanta in la dhaho taliya Khaalid wuxuu ku soo duulayaa Jubbaland? waa maya, qof loo sheegi karo ma jiro. qof indhala oo indhaha istiraya asoo waa gaarkiisa, laakiin qof loo sheegi karo male. walaalayaal waxaan halkan uga faa'iideysanayaa ciidamada Jubbaland. war ciidan la dirirtaan hal cadow baad leeyihiin, cadow labaad ma leediina. cadowgiina waa taqaanaan, degmooyinku haystana waa taqaanaan, halku idinka jirana waa taqaanaan. ha noqonina idinku cadowga Soomaaliya. Soomaaliya hal cadow bay leedahay. cadowga ay Soomaaliya lahayd idinku ha noqonina. Xamse waa prime ministerka qaranka Soomaaliyeed, wuxuu mudan yahay in la shaqeeyo, wuxuu mudan yahay in la garab istaago, wuxuu mudan yahay dib u xoreynta iyo nidaamka wadanka ka socdo in lagu taageero. yaa lagu adeejisanin adoo 23 jir ah, dhalinyaro ah, halgamaa u bixi qaranka Soomaaliyeed in lagu adeejisto sidii la rabo. yaan lagu adeejisanin waxaan ku keeni doonin ama aan meel ku geyn doonin. ciidanka sharafta leh reer Jubbaland dad baa waxay soo dhigayeen ciidan baa isdhiibay oo ciidan baa xagga tagay. ismina dhiibin ciidankiina qaranka aad u tagto. waxaa loo baahan yahay inaad dad fikira noqotaan. maxay tahay sababta keeni karto adoo ciidan Soomaaliyeed in lagu isticmaalo inaad la dagaalanto ciidan Soomaaliyeed? maxaa ka leefi karo? interest uu shakhsi leeyahay miyaad u dhimanaysaa?
هاو دمان ولا انترست او شخصي لي رئيس الوزراء قرنك مدحوينها تليها ciidamada lugta taliyaha ciidamada qaranka dhamaan halkan ka salaamayna waana taageereynaa waana garab taaganahay waxaana diidanahay 15 sano in hal degmo la fadhiyo waxaan diidanahay in dadka fikir khaldan lagu shubo waxaan diidanahay markasta oo ay doorasho dhacayso in la dhaw cirka laga soo duuli dhulka laga soo duuli waxaan diidanahay wuxuu qaranku rabin in laga sameeyo gudaha Soomaaliya ma rabna waan diidnay waxaan taageersanahay doorashada ka socota wadanka waxaan taageersanahay guddiga doorashada waxaan leenahay doorasho diid waa qaran diid doorasho diid waa qaran diid baan leenahay xukuumadda Xamse hala la shaqeeyo ciidanka Jubbaland la shaqeeyo ciidankiina la shaqeeyo ra'iisul wasaaraha la shaqeeyo taliyaasha ciidamada la shaqeeyo taliyaha ciidamada lugta ولا لا يوم إن لا فكروا أي مسكحة السليم كأوحزوي دي سؤال بي مهمته وحاج بيهام بقى عند تشوب الله كم مقام قبل كتشوب ذي دحى قبل كتشوب ذي دحى يا مقام عيد مقام مشر تقبل كتشوب ذي دحى وحنا كان كلاه الله يا دمان شعب وينها قبل كتشوب ذي دحى عيد كستو ونقض دليل يدي بالغف كجو وأنا كعظام وأنا استاكتان وأنا شرفتيني عزيني كرامتيني إلى شتان هديني كرامتيني شرفتيني إلى شنين عدني إلى الناس مجرد قبليه إنه وحي كسوين موين عاوة قبل بقالة شوكتو أما الصلق لا مساكو أما حجر شوكتو وحي كسو وانت يموت دعنا بيكون متاع بين قسط ويس أمور رعضة أم بيكون متاع عيل بيكون نولين دمانتو دمان بركة وحالقو ذا ودن كبركة ولا ليال هلا كعو قبل كتشبه ده هيرو باهي waxaa heelal loogu heelin karaa dal iyo dibadba gabadh iyo wiil duq iyo doon in la kaco gobolka in la xoreeyo dawladda federaalka in la shaqeeyo sidii lagu xoreyn lahaa ayada dawladda federaalka wadanka ayada wakiilka in ayada loo maro in laga la shaqeeyo in la istaago wariyaa idin maqan hadana raajabada dhexe cidda idin maqan yahay tayd sugaysaan cidna idin maqano ceel idin maqal sida awgeed waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynaya war urkuuliba ugaarsato reer Jubbaland urkuuliba ugaarsato marka aan leeyahay macnaheedu waxa weeyo midnimo wax lagu noqdaa Jubbaland midnimo wax ku tahay yaa la idin sheegay ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed aan xildhibaan ka soo jeeday Jubbaland ahana ra'iisul wasaarihii ka soo jeeday Jubbaland inuu ku duulay Jubbaland wax ma aqoon galama taliyaha ciidamada lugta Khalid baa ku soo duulayo Kismaayo ama Jubbaland wax aqliga saliimka uu qaadan kara ma aha walaalayaal wada tasha la sameeyo shirarka la qabto danta deegaanka iyo maamul goboleedka Jubbaland intuba laga hadlo ana loo fadhiin maamulka Jubbaland ee jooga magaalada Kismaayo 14 joogay aan xogogaalka u nahay aan maraga maqraatiga ka nahay aan anagu dooranay macnaha inaan asagu nacabnahay ma aha ee gabi ahaanba waxa meesha ka baxday wax tar la'aan shakhsi ahaan anagu ma diidinin dadka wax xumaatay iyo wax dhibaato ay nagu sameeyeen ma jiro laakiin waxaan diidanaa waxa weeye wax tar la'aanta 15 sano in halka la taagnaado dadkii iyo dalkii inuu meesha ku baaboo aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.